magacaygu saddexan waa Shukur Cabdullaahi Cadar waxaana ku dhashay Muqdisho gaar ahaan kilomitir 4 waxaan ku soo barbaaray Madiina waxaan wax ku soo bartay Xamar meesha ku dhameeyay waxbarashadeeda heerka sare ilaa heerka hoose waxaan bilaabay 15 meelahaas waa jaamacad dhigan jiray isticmaalay social media والله horta Puntland wiligeey waxyaabo khaldan maanan ka aaminin waana jeclaa mar inaan imaado ilaahay uu ii suurto galiyay alxamdulillah ilaahay ma iska leh oo anaga nabad qabna meeshaan keenay ma sha Allah wax dib ahna ma kala kulmin oo farxad un leeka helay marka mid oo nala soo dhaweeyay farxad aad u weyn aan dareemay dad walaalo oo qalbi nadiif ah joogan reer Puntland saasan leeyahay dad fiican oo wanaagsan ayaa ka buuxo si qurux badan inoo soo dhaweeyay waxa ay walaayabka badnaa ama erayada oo isdhaafsaneen oo aniga qofka kale ay walaayabka badnaa sababta ani lahjadaan ku hadla asagan lahjad kale ku hadla mar xitaa reer bariga waa isfaham weynaa markaan garow joogay erayada maqmaqli jiray waxay ahaayeen xitaa video ku soo sameynay garow ilaa dhankaas dhan erayada maqla waxay ahayd qalbi xabxab iyo waxa samaqlay iyo eray kale taas oo jiraan oo aan maqla erayga ay walaayabka badnaa maqla waxay ahayd marka boosaaso imaaday eraygaas waa Libreville cad fatax la dhahay baraxda waxay eray oo duul la dhahay du alla fiiriya la wada umaleena eraygaas ay taali baray du alla eray bari badan waa li baray laakiin ma xasuusto ma qaban kari isla markii wax qofka ma xifdin karo ma aha markaas ma wax aqabad ah meegaga imaan social media marka bilaaway dhanka familka leh wax yar aqabad ka jiray laakiin hadda caadi waa alxamdulillah horta arinkaas mar badan waa leedahay naag iska dhaafeenina ay dhaw naag maxay wataa nimankii oo faasi dhahayo nimankii waxay dhahaa waa fol xuntay saas camal laakiin waxaas waxba uma qabto qof walbo sidoo iska dhigo iyo sidoo ku dhaqaaqo ee ku xiran tahay kalsoonidina waxa qalbiga aan sida ahay sidoo Ilaahay uu umo kalsoonahay jismigayga jirkayga sidoo Ilaahay ugu abuuray alxamdulillah ilaa meel igama laasin si walba ahaan waxa uu ku qanacsanahay sideedaan ku qanacsanahay social media marka ku soo biira ilaa hadda saan la farxadeedana waa mar walba igu dhiirigeliyay asxaabteeda igu dhiirigeliso oo igu faraxsan mar walba weligeey ma ugu soo dhacay weligeey xitaa maskaxda ma gashan mana ku fikirin haddana ma ku fikiri doono maskaxdana ma gashan doono insha Allah adiga saa iga aamintid qofka kale sidoo iga aamin labada qof waxa kala shakhsi waa ayona iga aamin karta ay qofkaas kale xumaan iga aamin kara laakiin dadka dhan waxa wanaaga oo la dhaqmaa laakiin qof walba sidoo u dhaqmalaa caanimada horta been ma sheega caanimadan hadda ku joogo waagaas ilaa ay hadda oo caanka ah weligeey wax dhib ah mis wax ay caqabadeena mis wax farqi ugu taagan maanan arkin haddana Ilaahay ma ituso dadkoo dhan waa wada walaalahayga si ay jecelyihiin waxa si ka daran oo jecel qof walba oo jecel isa aaminsan sababtoo xumaan aan qof uma geesto aan xumaan in lii geesto ma jecel si xumaan qof kale u geesana marka aniga waxa dadkoo dhan oo wada jecel waxa la yareer Puntland inta idin salaama